maryan waa lagu soo kordhay waxay la yaabtay ninkan iyada la weynaa oo ilmeynaya hoosteedana yiil intay wax kale ka fakari lahayd bay inta baryadiisii ka yaxyaxday lacagtiina ka qabatay waxay tiri anigu haddaad ballantaad qaaday oo finaysid anna waan qaaday weli xishood iyo gabarnimu wajigeeda la ciirayay hadalkaas markay lahaydna iyadoo foorartay dhulka faraha marmarinaysay hadba intay daymo gaaban soo daysay hadiiba isha laabaysay hagoog yarna isku sii owdaysay cabdi baa farxad ooyi gaaray maryan markay jawaabtaas siisay isagoo hadalka boobayana wuxuu yiri waa sidee maryan dhaar waxaan kuugu marayaa inaan ballantan qaaday oofiyo oo meel marsho haddana adoo mahadsan waxaynu yeelaynaa isla galabtaba ilkaha dahabaynu soo gelinaynaa lacagtaadaasna dhar waxaad rabtid ku soo gado haddii dadku ku weydiiyo cidda dharka kuu gaday ilkahana kuu gelisay waxaad oranaysaa ciddayadii baa la iiga yimid maryan iyadoon hadlin bay madaxa ruxday taasay haa tiri cabdi intuu kacay oo salaamay buu yiri shaqaan hadda aadayaa dawadii waad qaadanaysaa sidii horena u qaado haddii aanoo maqan takhtarkii yimaadana u sheeg meel alla meeshii laga hayo oo waxba ka qarin waa mid isagu inala socdo anaa horay u aamusiyay waayahay maryan oo waxba sheexi ka biin baa tiri cabdi gurigii buu soo xulxulay oo hooyadii inta u tagay la socodsiiyay sidoo u dajiyay arinta taasoo iyadana uu faray inay dhankeeda majaraha uga qabato bal waayahay iska shaqo tag alla xaal ogo meeluu wax marinaya yaqaani habartii baa tiri intuusan gurigii ka dhamaan ayaa habartii ka daba qaylisay war hooy ha moogaan reerku qadama haystee cabdi aad buu u naxay markuu taa xasuustay wax hadalahana isagoon ka celin buu sii jiitay niyadu ku sii qaatay inuu ama qada soo iibiyo ama hadhow maqaayadaha dadka u qada geeyo cabdi baa duhurkii guriga ku soo laabtay isagoo qada iyo alaabo kala wada maryan buu inta dul yimid wuxuu ku yiri maryan haddaan dabka kuu shido cuntaan keenay ma ag fariisan karaysaa maryan oo markaa si fiican u ladan xagga moralka ma ahe xagga kale oo dhan sina wali u baqbaqaysa baa tiri waayahay waxba dab hashidina iska daa anaa karinaye intay hadiiba soo booday bay qadadii dhardhaartay waqti yar intaan laga jooginna diyaarisay dhowr bilood baa laga soo wareegay markaas ama subaxa isaga ah maryan oo subaxii dambe canjeelo dubaysa yara diiday oo waxba arki weysay ilaa inta madaxa qabsatay indhahay wax ka arki weysay isku qabqaba ismay ogeyn waxay ahayd walla cugubaho carcartiisa qaba iyo waliba ciirsalaantiisa kale u dheer eebow maxay noqon isagoo isan ka qasnayn sidiisiina waraaqaha isu daba marinaya buu halkiisii ka miisaa isuna haystay kan kaliyahe dariiqa toosan ku taagan aqoontana u leh sida ama loo shaqeeyo ama loo faano meelahaas buu waligiiba inta isfidhiqiyo dadka kale tusaa aqoon-yahanimo wax dhaliili jiray wuu faani jiray oo iska dhigi jiray nin birta calashaday habartii weyneede maryan la socon lahayd waxna ogeysiin lahayd jira xun baa dhulka dhigtay oo ku malaastay ilaa ayba isku daranto waxba kala garan weysay walowba gabowna u dheeraayo ay aad cudtu u ahayd maryan mar dambe xabadii canjeelada ahayd ee birta u saareed ay dhuxul noqotay caradiina qaaciya ur ku qarisay bay miyirsatay way naxday oo birtii kula booday waqtigu markaa waa aroor hore oo aan sidaa loo soo toostoosin maryan iyo dhigeeda mooye waxa iyana jarmaadinayay waa shaqada tirada badane waqtiga aan lahayn ee ay ka mid tahay inay 4 ilaa 4 iyo barka kacdo ay canjeelo u diyaariso dadka guriga leh oo habarta dhuliyaalka ah ma ahe inta kale oo dhamay ay ka wada shaqo tagi jireen
goor la hurdo bogay mise waa takhtarkii oo ka tuuraya dawana sida ilaan waa nin wax cunay cabdi baaba u qaadan waayay inta la wada fariistaa sheeh Maryan soo karisay la wada cabay takhtarkii baa inta qosol gaaban qoslo yiri alla naago bala idin heshay dhaawacan ogaabay qabtaa markaasay waliba shaqaynaysaa warbalaaye kugu dhacdaye yayan ku maqala yara gaabso cabdi baa yiri dhan ay aadaba halkaasay tala rafanaysaa iyadoo Maryan tii la qashay haddana lagu shaqaysanayo garcada u sheekada hadiyaa ku goysay odbartay gadmada iyo urgumarkaba odbartay gadmada iyo urgumarkaba oo shahabinta laga goyn galjiraa yaqaani maxaa adiga ka galay dhowr bilood baa laga soo wareegay markaas ama subaxa isaga ah habeenkii balaayadu heshay Maryan may aqoon lamana socon dhaqamada iyo caadaadka loo ilaaliyo rimayga oo horay ulama ay kulmin cid u sheegtana daaba ismay ogeyn waxay ahayd wala ugubaho carcartiisa qaba iyo waliba ciirsalaantiisa kala u dheer eebow maxay noqon cabdi wuu ka baxay ballantuu qaaday iyaduna waxba ma ay weydiin marka iyada ah xaaskii cabdi waa joogay oo waayo hore ayuuba yimid afada reer kalihi waxayba ka maseersan tahay dahabka ilkaha ugu jira inkastoo been laga gaday looguna sheekeeyay cidda Maryan baa dahabkaas keentay afadu waxbay dareentay inkastoo yan xaqiiqdii helina wali way daba socotay oo waxba ka guuxayay ciidaha dariska way xansatay hayeeshee wali wax dhaba may helin Maryan intay canjeeladii diyaarisay bay haddana shaqadii dacal kale ilahayd qabsatay is aragtay inayan fiicneen hargab iyo wax lamida bay u haysataa qof iyada yaqaanina meeshaba keensan maayo Maryan baa uur leh maxaa yeelay loomaba malayn kareen oo shakhsiyad aad u dhowrsoon edabtuna ku badan tahay bay ahayd hooskeeday ka cabsataa magaalada lama ay qabsan inkastoo muddo aad u badan joogtay warjiraaba cakaaru imane subaxa la kac canjeeladii iyo shaahiiba laga wada laac shaqadii baa loo wada faqdirtay Maryan iyadu waa qofka kaliya dhammaan reerka isku xirkiisa dhaqankiisa iyo samaantiisa haysay howl kasto gurigaasi leeyahay waji kastaba ha lahaatee iyada ka mas'uul ahayd loogana hurdi jiray maalin bay gurtay Maryan waa lagu soo korlay awal madax wareer iyo diid bay xaajadu joogtay markii dambe waxa timid lalabo iyo matag inay keento subax baa la wada shaqo tagay Maryanna waxa lagu dhaafay inay guriga ka sii shaqeyso Maryan intay dambiisheedii qaadatay bay suuqii aaday kolay meel dhaxaad sii marayso ayay la labootay matag bay meel dariiq ahoo dadoo dhami wada marayaan oo suuqa dacalkiisa ahayd isla rogtay waxay meeshii caacda gurtaba wixii uus caloosha ugu jiray baa dibadda yimid aad bay u dhibooneed xanuun xun baa qabtay darbi cidla ah bay iska fariisatay iyadoo itaalkoodu aad u yaraa madaxdayaan la labo iyo calool maran oo dabayli dhex guuxaysana la joogila goor dambe baa Maryan sara kacday way sii luuday suuqii oo goor hore wixii fiicnaa oo lagu kala tagay bay tagtay halkaasay iyadana dhibteeda u gaarka kala kulantay Maryan waxay rafataba markii dambe iyadoo waxun sida ayay haddana dib isaga sii luuday waa goor dambe gurigii oo hawsha ka sugaysa ay tira beeshabay timid jidka intii ay sii socotay bay kaniinigii madaxa sii gadatay way laqday inkastuu yara dajiyay haddana arintu madax wareer ma ahayne waa hawl kale si walba uga sal iyo qaab duwan qadadii bay dhardhaar maagtay taasoo aad ugu adkaatay way ka kacday oo meel agteeda ahayd inta iska fariisatay dhafoorada qabsatay Maryan oo sidii u yaaban baa reerkii soo horaan yeeshay arka inaan dab shidnayn afka la wada buuray Maryan markay joogi kari weysay bay saligeedii iska tagtay
horay ilmihii baa u yimide habartii baa iyana soo dhacday. Cabdi isagu safar buu saakadii hore ugu baxay gobolada dibadda, halkaas oo uu bil iyo dhowr bari ku maqnaan doono. Habartii reerku markay ogaatay inaan reerka maanta dab loo hurin bay inta furka tuurtay timi. Naakaalay, maxaad qada u karin weysay? Armaad aniga isku kay jirisiisaa. Maryan intay hoos ka baqday bay tiri, xanuun baa i hayoon wax la qaban kari la'ahay. Maryan hadalkeeda laga garan karaa inay tacbaan ahayd, cidise kama hoos qaadin. oo waxaan ku weydiiyey adigu ama jirano ama duceysnoobe hadda ma waxaan ka akhrisanayaa maanta waa la qada laayahay war ileen ibtilo naagtii oo xanaaqsan baa tiri qadadii waan soo gaday markaan keenayna waan nuuxsan waayay Maryan oo hadalkeeduba sii leeyto baa tiri afadii reerka oo muddo ka dhowr sano aan dhari kor fariisan cunto samayskiina ilowday baa qadadii aqooshay waxbay inta walaaqday iyadoo habaarka iyo hiifida ka baxaysa tira beeshay dadkii sugayay siisay Maryan waa ka degi waayeen cuntaduba waa u soo ureysay inay ku matagtaana laga yaabay dhowr jeer bay matagtay intii qadada la karinayay afadu way u jeedaa Maryan ha yeeshay waxba sidaa dani ugama hayso oo waxay u haysataa in ama duuma hayso ama qaras waxa loo yaqaan caadi u ah dadka reer beledka ah dadku badiba markii calooshu xanuunto takhtar uma tagaan farmashiye inta tagaan dawada bixida soo gataan kuna shubaan taasoo ku macneeyaan waan isqaras falaya afadii baa markay aragtay in xanuunka Maryan dhab yahay wiilay dhashay inta lacag u dhiibtay waxay u dirtay dawada la isku qaras falo inankii hadiiba wuu keenay Maryan baa la siiyay inta loo faanshay ilaa iyo markaas cid og ma jirto Maryan waxa haya iyada qudheedu way u warlayd dawadii bay qaadatay mar alla markay qaadatayna way soo celisay cabaar bay matagii miisaysay ilaa ay soo xigaartay afadii si fiican bay markaas u qirsanayd xanuunka Maryan mid dhab ah inuu ahaa aadna waxay uga walacsanayd ciidan la'aanta waliba ciidanku waa islaamay kii Maryan aan wax loo dhigay iska daayo aan la maqal mar labaad bay been u maraysay oo waxay istiri duuma haysa kaniinigii malaariyada ay u dirtay hadiiba waa la keenay Maryan oo aan sidaas u miyir qabin baa loo dhiibay si ay u laqdo ay laqda iska daaye afka markay u dhaweysay way matag soo rogtay waa laga dhaafay oo inta la iska daayay salligeedii loo dhaafay waa la wada seexday Maryan mooyee dadkii kale afadii baa hurdi weysay oo waxay aad uga walaacday jirada Maryan mid dhici karaysa ma ahayn haday dhacdo sahal ma ahayn in afada reerku si kasto isu qaado shaqada ama hawsha guriga meel mariso waa guri aad u hawl badan dhismaahan waa weynaa habartii cutiga ahayd waa u dheereed magaalada meel rasan buu kaga yiil oo wasaqdiisu joogtay ahayd way isku dhabaqday oo inta madaxa isgashatay bay kala dareeri weyday wax kasta waxa ka darnaa afadii baaba shaqadii ilowday sidii loo qaban jiray marar badan bay isku dayday inay adeegto kala doonato Maryanna iska erido maadaama ay jiraneed hayeeshee taa waxa hakiyay howlkarnimada Maryan lagu ogaaday iyo sidaan adeegto kale sahal loogu helay inay baxnaanisay ku tashatay dhowr ayaamood baa sii jiitay iyadoo Maryan oo ku faakacaysa iyo afadii meeshii wax walaaqayeen afadu inkastoo reer beled iska dhigaysay haddana Maryan cisbitaal ma ay geyn armayba Maryan dan oo haytaas ayaamuhu waa iska socdeen maalin dambe la sugayay baa Cabdi warqadii isaga ka timid oranaysay 2-3 bilood oo kala maqnaanaya warqadii waxay tiri isagoo afadiisa uu soo diray annagu ladnaan wali hawshii qarameed ee naloo xil saaray baanu wadnaa awal muddadu bil iyo dhowr bari bay ahayd hadda waa la yaro kordhiyay oo dhowr bilood baa laga dhigay waxaan filayaa inaan muddo idinka maqnaan doono ee iska dadaala maqnaashahaygu faa'iido inoo leeyahay oo aadba waad garan karaysaa laga yaabay inaan guri kale inoo dhiso marka adoo ku hurdi doona waa inaad reerkii waa kaasay majaraha u haysaa dhaqsana waad iiga warheli doontaa habartii ogsoonow nabaday maqnaashaha Cabdi wuxuu wax sii gaarsiinayay Maryan iyo isagaba marka laga eego uurka Maryan maxaa yeelay hadii uu joogi lahaa laga yaabay inuu intuu fahmo xaajada oo si kala arin yeeli lahaa muddadaas tala fara ka sii baxaysay maalinba maalin bay gurtay
maryan hunqaacadii way joojisay aad iyo aad bay u caatowday aneemiya dhiig yaraan baa ku dhacday ilaa ay xawiifowday oo xuub caaro kala noqotay calooshii baa iskeentay habeenkii dambe bay wax dareentay markaasay aad u naxday kadib markay isku xirtay kufsashadii iyo waxa caloosheeda ka buuran intay kor u booday bay naxdin darteed qaylisay alla ba'ay bay tiri inta markay tirina beerkay dhulka dhigatay oo oohin aan kala go' lahayn ooda ka qaaday waqtigu habeen la hurdo ahaa dhawaaqeydii baa afadii ku soo toostay iyadoo istiri tuug baa soo dhacay maryam bay dul timi oo tiri maxaa dhacay waqtigu habeen la hurdo ahaa dhawaaqeydii baa afadii ku soo toostay iyadoo istiri tuug baa soo dhacay maryam bay dul timi oo tiri maxaa dhacay waxba ma dhicin anaa baqay maryam oo wali oohintii joojine hoosta ka wadaa tiri maxaad ka baqday afadii baa tiri balaayaan arkay waan riyoonayay markaasaan naxay maryam baa tiri afadii baa guriga iridiisii inta fiirfiirisay dib isaga laabatay oo seexatay maryan harag waraaba alla u riday si ay waxyeeshabay garan weysay hadba gacantay caloosha la gashaa way taataabataa oo haddana kala soo boodaa dhul iyo cir meel qaadatay weysay wixii iyada uurka ugu jiray bay ka diday siday meelay ka aadaysa ogtahay oo balaayo waa adoon iska jirin sidan oo kale kuu soo ballaysa ileen bay iskula hadashay maryan awal waa lagu yaraaye markaasaa balo cidiyaha ula soo baxday xaggay wax marisaa maxay samayn karaysaa uurkii maalinba maalinta ka dambaysa wuu soo korayay maryan waxay isku dayday inay inta qariso aan la ogaan ilaa cabdi ka imaanayo maxaa yeelay ka hor haddii la ogaado waa la eryayaa maryay isku duubduubtay way ishambaabushay oo hadba inta dharka badsato dudumo guuraysa iska dhigtay intay dadaali karaysay dadaashay afaduna waxba sidaa isuguma taxaluujin isdadaboolkeeda waxayba u qaadatay wadaadada nooca cusub ah waxay sidii iska ahaataba maalintii dambe waxa yimid ninkii cabdi la oran jiray marka uu iimaanayay su'aal baa xaafada ka furantay ah maryan ma uur bay leedahay mise xertay raacday maalintuu yimidba wuxuu aad ula yaabay sida maryan isu dhalan rogtay ay u midab iyo muuqaal gadoontay isagoo waxba loo sheegin buu haddana yara shakiyay ilaan tubqabaa takaraysane hoos ahaan buu ugu kuurgaray ilaa uu hubiyey inay jimci tahay oo inta kol hore dhaysisay dabacday lugahaaba barbararan wuu yara aamusay bal sida xaal noqdo isagu wuxuu islahaa afadaadu way ogsoon tahayo way kuu sheegi doontaa aad buuna u dhiila qabay ha yeeshee ma dhicin maryan iyana dhan bay kala gaadaysay inay u sheegto firaaqayba u la'ayd maalinba maalinteed afadii baa maalintii dambe u soo barqad tagtay taasay ka dul timid maryan oo si u rasan calooshuna dibadda taal naxdin bay xaq tiri intay haddana u qaadan weysay bay indhaha marmaratay way shakisay oo sinaba u rumaysan weysay in maryan uur intaa la eg lahayd waxay isweydiisay oo maxaan hadda ka hor oo dhan u arki waayey wuxuu uur ma ahee malaha maanta la korshay afadii waxa kaloo sii shaki geliyey maryan baa markay aragtay sidii nabar xun lala helay inta bootin isqaaday dharkay qabtay isku owdowday way isi sare taagtay oo xaydxaydatay afadii baa si toos loogu dhibcay waxyaalo badan oo aan horay ugu fiirsan jirin bay gadaal ka gocatay sida waagay ma tagi jirtay cagaha barbararan iyo isdadaboolkeeda firfircoonaan yaraanteeda caatabadnideeda iyo dhiig yaraanteeda
afadii baa waxa ka soo haray markaad wax aragtid ama lagu sheegaad wax garataa awal oo dhan dhagweyn baan ahaa walle inaan Maryan ciidankeeda la calfanayn waan iska arkayay iyadu markay hadalkaas islahayd laba hal bay islahayd in la guursaday oo ay dibadda ku rintay iyo inaan ilma aan sharciyeysnayn loo laabay waxay ka gaabsatay inay iyada weydiiso maalinta iyadoo Maryan ka naxday aragga caloosheeda la arkay afadiina waxay aragtay la aamustay baaqadadii loo soo gabraday Cabdi dhankiisa dhiiladu way u saarnayd Maryan aad bay u raadisaa inay isaga u firaaqa hesho si ay faraha xaqiiqda uga saarto ilmaha naftoodu wax dareeme kama ay hadlin tuhmadii ciilkii ama kaagii iyo saxariirkii baa xargihii hayay xajin waayeen afadii baa maalintii dambe Cabdi inta afka u soo dhaweysay waxay tiri war hal ma ogtahay in Maryan uur leedahay Cabdi baa u qaatay in la leeyahay Maryan maxaad u kufsatay waatan oo uur bay yeelatay intuu kor u booday buu yiri maxaa sida igula hadlaysaa waad af xun tahay bedel waxa aad ku hadlaysid Cabdi baa soo degay oo inta wax fahmay yiri naasi kala u qaatay ma waxaad i tiri Maryan baa uur leh ما دسواشد ولقيت بإنتي بدأ قوستي هدو ترى هذا ولقي بيا مارك أفضي باتري هذا الكن رئيسي كلا أتري بائسقي هذا نسي شكي جليي انتو قرب كتاب تبو يري لله ما أور بيلاده هاي ما مريم باور له بويالو قرمي مسكين تنا الله بين ورقاري الله بين أنا قرر ما يه وإني نسيو قلا قفتن وهذين لا هاينا إيراتتا هذي الماء شرعي سلين سدنا أنو كبه إذا أطرنا إلا نسيدو كما وذا جوغيني هذي أديك سكالا كولتا هاينا سودا أفضي باتري عبدي أرق إني أهرني دامنتهاي انت أوهلي لقو مهيني وحو كفكري ماشو وحمرين لها هذا ميلبو اسكتوسا مربو استوسي إنو انت بابور كقاضو أو مال الله جيو إنو دلو مروحو إسيري مميرتتا adoo ka dhigaya sidii adoo waa hore guursaday markale wuxuu istusay inuu sidii hore u sasabay haddana intuu u sasabo uu been ka gado markale haddana wuxuu istusay inuu ilmaha ka soo baxsho intuu lacag bixiyo taqtarna gado dhanna uu ku adkaysan kari lahaa iyadoo go'aan laga gaarin hayeeshee la isla gartay in markale laga wada hadlo cabdina raba inuu dhan un ka gaarsiiyo ayaa la iska kala tagay gooray galab ahayd cabdina guriga ka maqnaa ayaa fadii Maryan u yeertay oo weydiisay na Maryan balkaalay labadooda oo kaliya ayaa markaa meesha fadhiya waxaan ku weydiiyay waxaad iiga warantaa waxa ka buuran Maryan baa naxdin caloosha loo dhaafay inay baxdana kuba sigatay balaayoy dadkaaga horso hadal baa Maryan laga dhowrayay iyana way qalashay afadii aragtay in arrini Maryan ku dhaaman tahay oo ay si xun uga naxisay iyadoo isla ka yeeray dadciday tiri maya waxba adoon nixin waxaad yeelaysaa waxa kani waa iska caadiye ii sheeg hana iga cabsan ilaan anay waajib igu tahay inaan wax kaala qabtee waxba wixii xun ahaan jiray la iskama indhasaabee hadba sidii wax uga qabsoomi karaan ayaa looga qabtaa waxaan kuu ballan qaadayaa inaan sidii hooyada oo kale kuula kalkaaliye ii waran Maryan oo hubta waxay fali doonto afadan sidan u hadlaysaa markii runta meesha taala faraha laga saaro baa go'aansatay inay waranto ileen waxba uma dhowrsoono furkay tuuraysay wajiga inta gacanta marisay oo candhoof liqday tiri adigu nixilahayda iyo farxilahaydaaba runta anoo sheegaya waxa uurka iiga buurani waa ilmo ninkaagaana leh isaga inta waliba ay kufsaday waagaad maqnayd oo dhaawac igu daray haddana lahankan maanta aan la saglaynayo igu reebay وتادي قلافتين قعله يوي قعلو لبقور دمتين ويدكيو إلكي قردان
maryan oo weli hadalkii wadaa afadii kor u booday oo baroor qabsatay way rumaysatay hadalka maryan sibaaba loo galayo wax qafiifay bay u muuqatay waxay bilowday hadal iyo isla hadal naamaxaa tiri armuuma qabaa oo iga qarinaysa afadii wareer baa inta galay wax ka saarana in la helo way adkeed arrintii awal maryan joogtay haddana way kaafiya adimo dheeraatay oo meelo kale ku dhiibsatay meelo badan bay dab hulaaqsiisay cabaar iyadoo laga joogo markii maryan hadashay afaduna il muddo ah bay isku buuqaysay ayay mar dambe intay maryan oo qada karinaysa sina u yaaban dul timid ku soo haliishay oo inay rifta u hollatay maryan aragtay in naagtu iyada maaganayd way istaagtay oo istiri haday kugu soo duufto iska dhici kaama tabaroone naagtii haddana dib bay u hakatay intay dib u xisaabtantay waxay istiri waxuso ilaan hubsiino halbaa la siistaaye xaajadiina waxay u rogtay inay maryan xog waraysato dabadeedna iyadoo wixii jiraba og ay ku dagaal gasho iyadoo aad uga qanacsan wax sheegid hadal tiro iyo faalana aan waxba diyaar u ahayn bay tiri waxaan ogahay waa intaa haddaad doonaysid sidii la ii galayna mid aan geli karaya maaho anaan doonayn afadii baa aad uga xumaatay hadalka inta loo daaray haddana laga xirtay iyadoo aad iyo aad u doonaysay inay dhaqso u ogaato wixii dhacay maryan waxay ahayd qof quus taaganoo ayan sinaba u marayn dabkaa dami haddii la yidhaahdo way sii afuufaysaa maxaa yeelay wax nolol ahoo u haray iyo meelay ka doonto midna uma jeedin naamiyaadan dhagalahayn afadii oo u soo faarumaysatay duufid iyo dagaal maryanna ay diyaar u ahayd baa mar kale sharqani soo yeertay mise waa cabdi hoos baa la wada eegay oo inta hubkii la sitay la dhigay waxaa layska wada dhigay dad qabow oo nabdoon mid kastaase dabka hoosteeda ka kulaaqayay waa midda baaburadiisu cirka gaari doonto afadii intay iska dhaqaaqday bay qolkeedii aaday oo inta ka rogtay si kale u saartay qolka waxay u aaday si ay cabdi dagaal ugu qaado ilaan waatan oo maryan dhiilana gelisay una warrami weysaye meelay wax ka bilowdase way haysay oo waa tii loo guud maray arrinta maryan dhankeeda iyana cabdi uga cokanayd way ogsooneed inayan gurigan joogi doonin meelay aadana garan mayn balaa alla baday ilma aan sharciyeysnayn bay rimaneyd itaal ma hayso awoodna iska badaa oo horaa inta loo dhigmiirtay dhan walba loo baaba'shay afadii markay qolkeeda soo gashay cabdina uu inta jikada soo galay uu damcay inuu sigaar ka shito ayaa maryan inta gacanta qabsatay si muusanno ku jiro waxay u tiri cabdi imaqal calooshaydan arag ballanteeniina xusuuso maanta ama waan dhimanayaa ama waa dibadbaadinaysaa cabdi intuu qaboobay oo ku sigtay inuuba suuxo buu gacanteedii iska qabtay hadba dhan buu eegay oo in xaaskiisa maqlaya mooday yaa ogeysiiya warmooge isagu damac inuu iska furfuro ha yeeshee wuu awoodi waayey taa aad iyo aad buu u yaxyaxay si uu waxyeelana heli waa afkii baa labadaan noqday indhihiina wayba jallaadmeen intuu hoos ula faqay buu yidhi inaan ilaahay ku ceebayn iga aamus anaa ballan kuu qaadaya inaan si unku oran doonee maryan hadal waxay ka tiri horaad ii sirtay maantase ima sasabi karaysid inaad isirtid iska badaayo haddaba ii sheeg sidaad waxyeeli lahayd haddii kale kuma sii daynayo waanan qaylinayaa ilaa cirka iyo dhulku isqabsadaan maryan markay hadalladaa lahayd ilmada ka daadanaysay dad way u qubayn karaysay hadalkana siday u lahayd wuxuu ahaa gariir iyo tufid afadii baa daahsatay cabdi oo inta soo baxday iyadoo dhuukinaysa waxay ku soo laabatay cabdi oo maryan garbaha haya iyo maryan oo iyana ku maran qofba meesha bugtaa isagay balbashaaye iyadii waxay si toosa u macnaysatay in lays dhundhunkanayay ilaan iyada waxa haya waa masayr iyo ninkaba lagaa qaadiye cabdi iyadu waa ka sii jeedaa maryanna iyadoo ku soo jeeda ayaa isagu ka qarinaya gadaal bay inta kaga timid kuna soo booday qoob iyo qaylo isku soo dartay jikada dhexdeedii ayaa qayladu dalluuntay maryan baa iyana awal weeyeysay si salkacday dhankeedana qabatay qayladii cabdi intay ka firirtay
kana qoyday buuba garan la'aa si alla si uu waxyeelo afadiisii xaadsan buu damcay qabo gacmahay dhabarka isaga kaga tubaysay buu qaba maagay markaasay ileen waa qof dagaalsane inta ka soo farabaxsatay Maryan weerartay kol dhowr feer iyo xagasho Maryan ay ku tageen buu qabtay xaadsan aad bay isugu dayday inay ka farabaxsato mana joogsan oo intay itaal lahayd bay ku mitidaysay inay ka farabaxsato oo dagaalka wado intii uu hayay waxa isaga ku soconayay qandhuufo xagasho qaniyo hoos ka haraatin jiliblaab aad bay u keylamaysay faraha ayuuna kaga gubtay qaylada ka soo burqanaysana wax kalayba ahayd cabdi waxba uga darnaaye tan isaga balaayada ku noqotay waxay ahayd tan Maryan meesha la soo taagneed iyadoo meel agtooda ah oo hin la taagneed dharku sheegay qabtayna inta laga rifay calooshii baa banaanka tiil hadba hoos buu u eegayay markaasuu sii naxayay iyadoo sidii la isu haysto habartii iyo odaygii lagdamayaan Maryanna iyadoo gol qaawan agtooda oo hin muruga la taagan tahay mise waa ilmihii oo didayo shaqadii loo diray ka soo wada dhalaalay ubadkii intay aad u yaabeen bay indhaha uun taagayeen garta sida sheekada u dhacaysay waxba se kama qaban karayn oo waa looga ilka waaweynaa haddayba samaagaan cid baan ka dhageysanayn naabal aamus oo wax xubso intaadan dharkaaga ka cararin balena keen aan qolkeena tagne cabdi baa isagoo xaadsan u sii jiidaya qolkii ay seexan jireen hadallada lahaa ballan waxaan ku qaaday in aniga iyo adeegtadan rifrifka badan aan guriga nalagu wada qabi ku raaci maayay isiida xaadsan oo ka soo taagan inay raacdo baa tiri waxay uga googo'nayd inay iridda ka baxdo duddo cabdi markuu arkay inay soo taagan tahay si loo sasabana tagan tahay buu dhan kale arrintii uga wareegay laba feer iyo dhowr arbaaxo isgudub ah ayuu kaga soo qaaday halkaasoo inta isku guda dhacday hadiiba hadalkii daysay waan ku baryaynaa markaas baad afka noo sii taagaysaa sidaa kuma dayne wuxuu ku waalay cabsi gelin iyo inuu meel xille kaga soo hari doono aad bay inta u baqday indhahana taagtay shib bay tiri oo inta sariirtii isku kaduuday sidii biiq la qabtay dhegta raaricisay waxay u muuqatay qof inta laga guuleystay gegi cidla ah ciirsi la'aan la balanbalaya xasan oo juga culus qabta haddana uga daba tagay sida kuma dayne wuxuu ku waalay cabsi gelin iyo inuu meel xille kaga soo hari doono aad bay inta u baqday indhahana taagtay shib bay tiri oo inta sariirtii isku kaduuday sidii biiq la qabtay dhegta raaricisay waxay u muuqatay qof inta laga guuleystay gegi cidla ah ciirsi la'aan la balanbalaya cabdi markuu arkay inay isdhiibtay buu haddana dhanka kale u rogay arrintii xasan buu inta soo qabsaday oo ku soo dhawaaday wuxuu ku yiri maqal xaadsan anigu runtan kuu sheegayaa wanaageennana waan ka talinayaaye waa igu wallaahi horta anoo dhaar kuu maraya runtii waa tana ila arag si walaaltinimo ahna ila la fagur waxaa jirtay in waagii aad maqnayd aan habeen faraxumeeyay yartan dabadeedna ay sida muuqata halka ka qaaday waligay habeenka ma ahee kitaab baan ka marayaa laga soo bilaabo habeenka qulub iyo murugay ugu haysay oo waligayba waan ka feejignaa una toog hayay inay qaadiya in kale ayaantii dhaweyd ee aan soo laabtay baan horay ka arkay inay xaamilo tahay maalintii dhaweyd markaad i weydiinaysay anoo ogsoon oo beerku i xanuunayo ayaan haddana ka maquuranayay hadda markaadna soo weerartay iyadaa meesha igu qabsatay oo ilahayd si un ii gal maadaama aad sidaa ii gashay adna waxaad mooday inaan baashiyeynayo taasi aniga iyo iyada caadi noo tahay si kastaba arrintu ahaatee runtii oon loo laabanayn iyadoo sidaas ah dilistii aan ku dilay ee aan danta ka lahaana kaa xaalmarin doono isla maantaba baladaan ku soo hordhigaye inoo taliyo reerkii meel inoogu fur taladaadana ay noqon mid ina dumisee ku dadaal inaad wax dhistid oodan marnaba aqalkan dhibaato u geysan waxay ila tahay aqalkan markaan leeyahay waxaan ula jeedaa waa labadeena iyo ilmaheena Maryan iyadu waa ka dibadda yeeyan tuhmad caadifad iyo caraku qaadine ka baaraan deg anna diyaar waxaan u ahay inaan kula garab qabto
intii itaalkay ah aanan kugu hagran hawsha xaadsan laga soo bilaabo markii la weeraray ilaa iyo marka la joogo way walaacsaneed oo hadba waxba istusayay waxay kala heli weysay siday wax yeeli lahayd iyo meeshay wax marin lahaydba hadba dhan baa taladu iska tusaysay mar waa tii la dilay oo oohin iyo amakaag ayaan meeshaba ka sugayn baa haystay mar kale inta loo qaboojiyay baa dhanka kale laga tusay waxay walaacdo hadba dhan eegtaba waxay u daysatay inkastoo si aada u ciil qabtay inay siduu doonayay yeesho xaqiiqdii iyo wixii feer iyo haraati ku dhacayna duudsido si qosol gariir ahoo oohin dhabahi ku jirto bay u hadasho tiri anigu waan dillahay tala caqligal ahna waad ii soo jeedisay ma ahi mid sidaadoo kale nacas ah waxbaan kala garanayaa adigu waad ku ciyaartay magaceennii sharafteenii iyo jiritaankeenniba ha yeeshee anaan taas sidaad adigu u qorshaysay kuula qabanayne kaa qabanaya waxaan dantooda iyo dadnimadooda dhowrayaa kuwa eebba inaga wada beeraye maanta u baahan daryeel haddaan u qaadaa dhigo sidaad adigu u qaadaa dhigtay waxaa muuqata inayan dan u lahayn kuwaan u danee isleeyahay hadda iyo dan adoo horay inoo duugay haddana aniga dilis iigu daray waxaan haddana kugu raacayaa talada ah aan isdaryeello haddayba kaa dhab tahaye bal soo daa waxaad ka leedahay taas cabdi oo wax kala filayay baa hadalkan qaadan waayay farxad buu la dilaaci gaaray si uu yeelo meel uu hadalka ka bilaabo iyo wuxuu yiraahdo ayuu garan waayay iyadoo wali sidii la yahay baa curadkoodii oo ilmaha kala wakiil u ahay ku soo garaacay oo yiri maye waa la baahan yahay maxaa qadana loo siin waayay mise waan iska qadaynaynaa odaygii baa yiri war maye ka soo wada rida waynu wada qadaynaynaaye inankii baa dib u laabtay inta markuu dhagta ku ritay oo inta Maryano iyana meel duuduuban u tagay ku yiri naa ka soo rid qadada kuna soo dhaqso maanta calooshaabana dhex taale Maryam baa dhibsatay ereyga wiilku yiriye naa intay hoos u hiiftay ay tiri waa gartaa oo xaq baad u yeelatay inaan naa ay tiraahdo maxaa yeelay aabahaaba inaagaystay cabdi iyo xaadsan waxay u deysteen talada inay qaadaan dhigaan kadib markay qadeeyaan qadadii baa la isugu yimid iyadoo bulaankii iyo buuqii hadaayay dhacayay dhanka soo damay dhanka kale si xun u hulaaqayay Maryam oo fallaaraha oogadeeda haystaa timaheeda ka badnaayeen baa qadadii si cagajiida u soo daadisay qadadii baa aamusnaan inta lagu cunay hadiiba la wada hurdo tagay Maryam bay ahayd qofka alla ka weelay gurida dhiqida iyo meelaynta weelka inta ay iska dabalaabaneysay may aamusnayne hadba garba saartay ilmada isaga tiraysay aragtay in la isyahay iyaduna shisheeye tahay labadii isu dhaxay intay qolkoodii hoosta ka soo xirteen bay talo u fariisteen xaadsan oo si walba uga heshay hadalkiisa dambe talo ku soo wareejiska ah baa tiri waa in Maryam maantaba tagtaa oo yan sinaba gurigan u joogin Maryam waa inay hadda guriga ii dhaaftaa anigu meeshan adeegta ka heli lahaa aniga ii jirtay oo hadda ma waxaad leedahay aan saldhigeeda maantaba u laabno cabdi baa yiri sidee baad u hadlaysaa soo adigii talada iga adeejiyay maxaad haddana iiga daba hadlaysaa xaadsan oo markaas balaayo iska dhigaysaa tiri cabdi sidii isagoo maxkamadii ku xukuntay inuu hadalkeeda yeelo ilaan dambaaba yeelsiinaysay buu yiri waa yahay waan yeelay taladaada midda kale miyaanay ku habboonayn inaan lacag siino oo ugu yaraan bal si u nabadgeliyeyno waa inaan ogaanaa inay xaq inagu leedahay imise sanay inoo shaqaynaysay iyadoo waliba dulmanaydoo aynan siday u shaqaynaysay wax u siin jirin balse haddaad adigu ku talisay taladaada lama jabin karee wax farsameeyo anigu waan ka dhuumanayaaye sidaad wax yeeli karaysid yaal xaadsan aragtay inay gacanta ku hayso cabdi
intay isi sii balaayeysay bay tiri waa sidaas adigu kol dhowba iridda ka sii bood anna runtaan u sheegayaa iyo inay guriga ii dhaafto cabbaar cabdi markuu jiifayna si dhuumasho ah buu u baxay dhabbuhu laba ka sii dhigay maryan waxba may ogeyn sida loo qiyaamaynayana war iyo wacaal toona uma ay hayne salligii baas bay dul rafanaysay iyadoo calooshu diingaaxa dhigtay jiifka meeshana qaban la'ayd ilaa waa salli shamiito yaalo aan wax saarani jirin ma dhacday ahayd ayaamihii dambe uurku ku soo saa'iday inay dhinaca dhulka dhigto oo qaabkay u samaysnayd baan aqbalayn jiifka meesha ama goobtay guriga ka deganayd xaadsan mar alla markay hubsatay in cabdi baxay meelahana ka dheeraaday bay ileen awalba suulkay ku taagneedee soo baxday oo maryan oo sideedii ah intay u timid indhahana ka soo gashay waxay tiri naa'im maqal aadna dhig ugu yeelo oo yuu ku dhaafin hadalkan ku leeyahay maanta saacadan la joogaa kuugu dambaysa joogista gurigani waa inaad xamaantaada ka urursataa dhaqsoo ka kac fadhiga sidaasaan dhuunta kaaga jirayaa kuuna daba taagnaanayaa ilaa aan kaa saaro cagahaagana aan dibadda ku ogaanayo si aan ceebtaada iridda uga soo xirto mar un maryan baa gabal cusubi u dumay dhowr ama cutubyo ciro ah ayaa isku mar isla goobtii uga soo yaacay way caddaatay oo haddana guduudatay si alla si ay waxyeeshay garan weysay kicid iyo ka bixid baa laga sugayee intay sii baraaqsatay bay dhafoorada qabsatay iyadoo wax hadal ahayna ka iman la'aa xaadsan goofareegii iyo xaarxaaristeedii hadba dhan bay iska taagaysay wayna dhurmaysay haddaad sugu lahayd alla qabaygii beenta kuu sheegayna isna dhoof oo waddankaba ka teg isagoo sidaadoo kale ceeb la salaglaynaya isba dhoofiya adna dhoof oo isaga dheerow meeshan aad ku ceebaysan tahaye lagaa yaqaan xaadsan waa caddaan waxay sidaa ugu hadlaysay waxay doonaysay inay maryan inta dirto weliba dhoofiso ay dhulkan ama magaaladan ka dheeraato waa dirodiriya maag maryan oo siday u kici jirtay u kacaysa baa tiri casar weeye galbeed waa habeen cirifkii gudcur soo cawanayo anna aan cokonaaday oo cudurlaabta ay jiifo ciirsina aanan lahayn cid iqaadana daaba markii aan cudanaa ama aan cartamayay cawadayda ladnaa idinka ay curyaanshay cunay oon iga reebin caddugaag lagu tuuro waa anigaan catirtaas ah markaan caabuq noqdee xooggaygii aad catirisay miyaad caasi garowday ood ciyaar iyo dheel tiri cadan ka dhoof ohay ciil badana naftani ciirsila ah dhibaata ii cudana mamataantay cadbaa meeshaan ciirsa iraahdo maxay iigu cidaa maanaa cudur booga iyo cayn xun layga abuuray ma cidaan dabar gooyey oo lay cadaabahayaa cawday oo cudud waayey naftani ma iska carrawdo dhiiggu muu iska caaco wadnahan cartamaaya shaqada muu ka caroodo iska diida culayska anna aan ciri beelo aakhira ciirsi u doonto maryan iyadoo weli wadda geeraarka baa xaadsan inta u adkaysan weysay tiri naa haddaad gabyaa tahay raadiyaha la tagaaye iga dhaqsoo xaashiyahaaga meesha ka ururso dhaqsoo ila dhaafaataa dhugta maryan oo quustii ugu weyneed taagan meel ay cawo alla u irkatana la baa iyadoo boorso jeexjeexan oo waa hore inta la nacay iyadoo waxtar looga dhigay jiidaysa dibadda uga baxday gurigii ilmada ka daadanaysay siday u tallaabsanaysay murugada niyad jabka iyo leeleelka ka muuqday iyaday wax kala ahaayeen bay hortaa bannaan isaga socotay may garanin meelay abaarto magaalo weyntii bay hadba dhan u qaaday waxaan ahay duhurkii gabaldama yahayo waxaan ahay mitaasho dirgin waiida socodkay magaaladu waa baabuur dad iyo buuq badneed cabbaar markay iska meehanaabaysay bay daashay oo ileen waa xaamile awoodi weyday socodkii micnaha daraaye ay hadba dhan u tallaaba joogsanaysay derbi cidlo ah bay salka saaratay boorsadii oo meel agteedaha kala taal waxa ku jiroo dhanna loo wada jeedo ileen ma xirroo way dildilaacsanaede bay dhegta haysatay hadba baabuur dhalaalaya gabdho isjalqinaya adduunyo wada birqaysa baa agaheeda xawaareynaysay sheedda unbay ka eeganaysay iyadoo noloshaba quus ka joogto aan uba jeedin dhaldhalaalka
iyada ka daxalaystay markaas waa casirliiq qorraxda cirifka sii gelinaysay meel ay wax ka qabato ama ay ka abaartana may garanayn waxaa aad yaab u lahaa maryan soo baxday meeshay u soo baxday xagee bayse joogtaa mar dambe bay xasuusatay inantay horay isu jiireen sagal la oran jiray waxay hadba dhan u luudaba maqrib dumay noqotay dhibaatada ugu weyn ee haysatay waxay ahayd waa iyadoo ku dhicila inay istusto dhowr adeegto oo is yaqaaneen meel baastay ka shaqayn jirtayna daris la ahaa iyada geeri waxa la noqotay qofku yaqaana ha ku arko adigoo ilmo aan sharciyeysnayn la meermeeraya oo meelaad fooda geliso adduunyada kala waxay aad u jeclaatay inay iska dhimato may aqoon waxa isdilista la yiraahdee way isdili lahayd haddayba in yaroo fikrada ka haysato maryan oo wali magaaladii dhex lugaynaysa garana la meelay abaarto habeen madoobay noqotay waxay ilaashatay darbi ay seexato taasay arkootay darbi dad kale badani kor horeba intay waraaqa gogladeen xaarxaaranayeen kama ay deerin inay aragto dad sideedoo kale dibad jiif ahoo erka xabkaysanaya dad oo dhan may rabin inay darbiga kala diristee dumar bay ka fiirfiirsatay wayna ku jireen iyagoon weliba aan yarayn badnaa maryan iyadu waraaqa ay goglato ma ay wadan meel gees ahoo dhaxanta looga cararay bay fariisatay dadkii meelaha jafjafanayay oo dhan rag iyo dumarba oo iyagu iswada yaqaan baa isku mar maryan soo wada eegay hal mar bay isku mar sidii iyagoo amar lagu siiyey qosol ka wada kaceen haye hadda bal noo waran goormaa durfigaagu soo dhacay ma galabta la joogo oho mise meel baad ku qarsoonaan jirtay soo dhawow gacmo furan darbigu waa darbigaagii gogolna adaaba dhar qaba boorsada maxaa ku jira maadna tustid aan dharka kula huwanne iyagoo wali sidii u hadlaya baa maryan la galay way cabsatay oo inta hadba dhan eegtay waxay istiri kuwani adayba ku cuni doonaan meesha isaga carar hadal la'aan bay inta waxay sidatay jiidatay iska kacday ay sii dhaqaaqaysay maahee colkii meesha horay u deganaa baa ilqooreedda iska wada eegay oo intay isu wada iljabiyeen mid ka mid ahaa yiri haye maxaa laga sugayaa ma cid lagu daro waad arkaysaanoo waa baadiye waryaa ku xiiraya oo loo duceeyaa hadda ha ilaabina wixii la soo helo inaan lala kala dhuuman doonin ninkii horay hadalka u bilaabay una muuqday madax nin iska dhigaya ayaa laba dhalinyaro inta farta ku fiiqay yiri labadiinan baa u xil saaran baadidaas dhaqsaadna uga warkeenaysaan halna iska jira inaad wax qamqamtaan ka boodayay dhuumane dadka meesha buuqayay waa dad cayr ah oo dibjir ah aan meelay seexdeen daayo waxay dhuunta mariyaan hayn waxay ku dhaqaaqaan tuugo wax dafid alkool ay meelahaas ka shaxaadaan ama shilin ay dafeen ku gataan darbiyadu waa u guri ay seexdaan tuugada iyo wax dafistuna waa u shaqo wax nool ama nolol ka rajo qaba ma aha waa dad inta iswada nacay nolosha quus ka jooga walowba naftu ay yendeen iyagoo badan oo tiradoodu boqolaal kor u dhaaftay bay haddana dhan markii laga eego iswada garabsadaan maxaa yeelay dantooda iyo noloshooda mid ah way heshiiyaan iyagu oo way kala waana iyo tala qaataan waxay helaan waa dad sida badan wadaaga inkastay u kala badsadaan siday u kala xoog weyn yihiin labadii maryan la daba dhigay siday u sii daba nagnag lahaayeen iyadoon la isla hadlayn baa la soo taabacay si loola qabsado maryan mid kasta wuxuu hoosta ku wataa midi loo soo saantay in wax lagu dhaco dadkana lagu cabsi geliyo ama halala dhaco ama hal la tuso si loo qalqalgeliye wax la soo dhaga nabnaadaba mar un baa la isla soo simay kiilaha aniga iida ayaa inta maryan garabka ugu dhuftay yiri ob naawaa sidee maxaad ii dardari mise mid nafteeda nacday baa tahay kii kala isna soo booday walowba ayaan xisaabta ku jirin inuu isagu hadlo yirina maxaad inanta ka rabtaa in adeer haye malaha nabad maryan aragtay in meesha wax laga wado intay istaagtay bay daymo kulul ku fagiijisay mise waaba qayb ka mid ah kuwii dhowaantan ka soo baydaday way fahamtay in jar loo degayo meeshii iyada ahaydna laga soo raacay hareeraha ayay eegtay mise dad sidaa ahoo ku dhowi ma jiraan way jiraan qof aan sidaa u danaynayna meelaha iska xawaareynayay inay af labadii yeertay maagtay misena la ahaan weysay waxay istiri bal hadda u yara sug
intuba inteeda kii hore wax u daandaasaday baa yiri naamaqal miyaanan kula hadlin maxaad iigu jawaabi weysay mise afkaagu hadalka ma karo ilaa laga hadal siiyo hadalka intuu lahaaba boorsaday sidatay buu qabsaday kii kalena garbasaartii iyo masarkii buu aaday Maryam baa inta boorsadii isku duubtay qaylo ka kacday mar alla markii la arkay inay alaabtii ku dagaalamayso baa labadiiba isku mar intay midiyihii ay siteen iska soo jareen midba dhan ka gelshay iyagoon u meel dayine ha idinka harto ha idinka aamusto uga dan lahaa Maryantii qaylinaysay baa shibtiri midiyaha markay aragtay midiyihii midna cududda iyo garabka halka ay iska galaan hoosteeday ka gashay tii kalena si balfis ah oo dhinac mar ah bay gacanta dusheeda uga gashay nasiib wanaag khayladii Maryam ayaa waxa maqlay boolis roonda ahaa oo meel aad ugu dhow ka soo laabanayay xagoodayba u soo socdeen sargeeskeed baana kaga gudbanaa ay wiiqwiiqda maqleenba orodba isi soo wada qaadeen askartu afar bay ahaayeen markay soo laabteenba waxay isha ku dhufteen qofka sii dhacaysa iyo labada qof oo inta wax dafeen cagaha wax ka dayay mid kuwa wax dafay kamid ah baa iyagii afka soo saaray hortiisa sidaaba uma eegin maxaa yeelay talaabadu qaadaba gadaal buu eegayay askartii aragtay in meesha dambi ka dhacay waxba may joogsane tuugadii bay hareeraha ka dhigeen kii xaggooda soo aaday hadiiba way qabteen kii kala salawaa meel uu raad dhigay kay qabteen wuxuu ahaa kii boorsada waday inta laba dibla katiinad ugu sooceen feer iyo dharbaaxa isdhaaf ahna u dhiibeen bay soo taxaabeen goobtii bay la soo aadeen waxay yimaadeen iyadoo dad dhowr ahay qof dhulka yaallo dhiig ka shumayo inkastoo meeshu magaalada dhexdeeda ahayd haddana baabuur ilaa markaa ma soo marin hadday soo maraanna waa la qasbi lahaa ruuxa dhaawaca ah baana lagu geyn lahaa cisbitaalka mar dambaa taksi la helay Maryamna lagu qaaday askartii baa isqaybisay oo midna baabuurkii dhaawaca qaaday raacay si uu la socdo meesha la dhigo saddexdii kalena tuugii bay waxay u soo kaxeeyeen saldhigii baa la keenay sidoo kale inta la weydiiyay wixii la weydiin lahaa buu damcay inuu waxankiro loogama sajimcine goomanka inta laga garaacay laga hadalsiiyay kii kale iyo kuwii soo dirayba intuu sheegay baa lagu soo wada guray dambigii dhacay oo dhan dhowr saacadood baa looga soo jeestay isku habeyntiisii meeldhigiisii iyo wixii la halmaala askarigii Maryam raacay baa soo dhacay isagoo baabuur lagu sido saldhigii buu qaylo la soo galay oo yiri war qofkii way dhimanaysaa haddaan dhiig la siine dhiig hala dhiibo war dhaqsada waa ruux nafbaxaye kii habeenka shaqada u madaxda ahaa ayaa inta bale iska dhiga yiri oo waxaan ku weydiiyay cisbitaalka miyaanu dhiig kaydahay ool kii qayla dhaamada ahaa oo aad u xiiqsan baa yiri war maye dhiig waa yaale kii furaha hayay ayaa la la'yahay gurigiisii waa laga doonay oo la soo waa dhowr askari baa la kaxeeyay si dhiig looga soo miiro markay meeshii tageenna waxay la kulmeen iyadoo kol hore dhiig laga soo qaaday cisbitaal kale lagu duray walina ay miyir laadahay tii ugu weyneed waxay ahayd markii Maryam cisbitaalka la keenay takhtar arkoo qabta waxa ugu horeeyay kii hore u daweeyay Cabdi Fakiyay markay isaaf garteen kadib takhtarku mar alla markuu arkay inay Maryamtii balaayadu ka socotay tahay oo waliba uur leh ayuu u maleeyay in Cabdi soo dilay haddayan dhimanna oo la daaweeyana laga yaabay inay iyaga lugta la soo gasho wuxuu goostay inuu isaga maquurto si sahlan ay isaga nafbaxdo waxaase taa tuhmay oday da'weyn oo takhtarka kaaliya u ahaa shaqadana habeenkii wax ku lahaa odaygii baa soo giirtay dhiigii doonay oo Maryam badbaadiyay Maryam inta hadba dhan la isula jiirayay way maqnayd oo miyirba waxa ugu dambeeyay markay midiyuhu ku dhacayeen odaygii takhtarka tuhmay booliskii buu hoos uga sheegay oo yiri askaray dhageysta idinku soo lama idan socon qofkan la soo dilay ha takhtar askarigii baa yiri haddaba waxaan ku sheegayaa in ninkan takhtarka ahi aanu doonin in qoftani noolaato anigu garan maayo meel ay wax ka socdaan odaygii takhtarka ahaa baa yiri askarigii baa shakiyay hadalkii loo sheegayna qaatay wuxuuna ku soo qoray oobiga buugga wixii dhacal lagu qoree saldhiga yaal arrintii waxay ku dantay iyadoo Maryam la badbaadiyay tuugtii oo dhan la soo wada qabtay takhtarkii oo
fallaari ku mudan tahay iyo kiiskii oo meel laga bilaabiyo meel loo raaca leh degmada wax ka dhaceen habeenkaas hawsha nabadgelyada waxa madax u ahaa nin gaashaan la ahaa aqoon ku filanna lahaa aadna cadaaladda iyo nabadgelyada u jeclaa ma uu ahayn qof qaata musuqa iyo waxyaalaha la isdaba mariyo sida badana ninka madaxda u ah howlahaas oo kale dhowr saacadood markuu joogaba waxa loo soo tabiyaa wixii dhacay oo dhan goor saacadu waqti dambe joogto waagiina aan wax sida u weyni ka harin ayaa loo keenay wixii dhacay wuxuu dhageystaba mar baa la soo gaaray arintii Maryam markuu maqlay naag uur leh baa midi la galgaliyay buu aad u xanaaqay wuxuuna qaadan waayay sida sharciga loogu tumanayay aadminimadana loogu xadgudbayay siduu u fadhiyay intuu iska bedelay oo wajiga kaduuday buu yiri waxaad iigu yeertaan dhammaan in alla intii ka goobjoog ahayd iyo kuwii ka agdhawaaba degdeg baan u doonayaa waa loo wada yeeray hortiisayna soo wada dhoobteen markaas ayuu mar labaad ku amray inay ka warbaxshaan sidii wax u dhaceen hadalkii iyo warbixintii baa siday ahayd mar labaad loogu celiyay markay dhamaysteen baa askarigii cisbitaalka tagay soo booday oo isna sheegay sidii dhanka cisbitaalku wax uga dhaceen takhtarku isugu dayay inaan qoftan la daaweyn gaashaanlihii baa inta miis horyiil dharbaaxay yiri maad noo sheegtaan oodna tiraahdaan waa qof la asasiinaareeyay maxaad kaga daali walla intaan daba galaan ka soo dhalaali doonaaye xusuus qor uu lahaayay horyiil buu la koray oo kiisku siduu ahaa ama u dhacay iyo siduu ula muuqdayba si kooban inta ugu qortay wuxuu u yeertay dhowr askariyo uu daacadnimo howlkarnimo hufnaan iyo dannimo ku yaqiin askartii kaloo dhan buu iska kala diray iyagii mooyaane